بسم الله الرحمن الرحيم أنا هو إنجنيور حسين محمد عبد الرحمن ما أنتنا وحا إذن وذاقي دونا تينسكي لبعض أهنا تينسكي لحد 12 تنسسكا وبرسنتي وسيمبل باست تنس شلي أيان دوبي ما أنتنا وحا ربعين دوبا باست continuous tense باست continuous tense محل لها sharcigiisa iyo tusaalayaasha ay isku bedelaan ayaan halkan ku arki doonaa si fiican oo la socda insha Allah. Okay, past continuous tense maxaa la dhahaa? What is past continuous tense is used for? Past continuous tense maxaa loo isticmaalaa? What is waa maxay the rule of past continuous tense? Sharciga past continuous tense uu leeyahay maxay tahay? Give an example, tusaalayaalna si auxiliary verbs uu leeyahay past continuous tense na muxuu yahay? Waa was and where ti oo goobta loo isticmaali jiray ma aha where taas haj ayaa la socota was and where marka was and where waa auxiliary verbs of past continuous weeyaan insha Allah aan usii gudubno. Okay, simple past meeshaas past continuous tense ayaan ka rabay ciwaanka ah kore past continuous tense ayaan ka rabay. Okay, past continuous tense maxaa loo isticmaalaa? Is used waxaa loo isticmaalaa to express an action which was happening in the past. waxaa loo isticmaalaa ficil dhacayay xilli la soo dhaafay ayuu continue ahaa ayuu socday. tusaale ahaan shalay camal ayuu socday ficilkan waxaana lagu magacaabaa past continuous tense wax la soo dhaafay oo wali oo socdo wax la soo dhaafay oo socdo ilaa hadda ma socdaya markaasuu socday isla waqtigaas la soo dhaafay ayuu socday. Okay, rule sharciga muxuu noqonayaa? sharcigiis wuxuu noqonayaa subject plus was slash were plus verb plus ing plus object. waxaan horey u soo baranay verbka goorma ing lagu daraa. waxaa ing lagu daraa marka uu verbku yahay present oo kaliya. verb present aan ahayn laguma dari karo ing. Okay, taas waa isla fahnay. Example tusaale, I was playing football yesterday. aniga kubad ayaan dheelayay shalay. He was eating banana. isaga moos ayuu cunayay. yesterday dhihi kartaa hadeertu waa iska dhaaf kartaa. moos ayuu cunayay. Okay, she was cooking lunch. ayada qaday karinaysay when his father arrived. adii kartaa markuu aabiis imanayay qaday yani karinaysay waa la dhihi karaa balse anada kuma daran waa soo gagaabsaday. She was cooking lunch. ayada qaday karinaysay. They were reading lessons. ayaga casharadooda ayay akhrisanayeen. We were drinking water. tusaale waxaa la dhigay ardaydii aawe ardayda casharadooda ay akhrisanayeen aa leedahay. it means waxay ka dhigan tahay marka aniga soo tagay ay casharadooda ay akhrinayeen oo kale waa la soo dhaafay. marka wuxuu leeyahay they were reading lessons. ayaga casharadooda ay akhrisanayeen. We were drinking water. anaga biyo ayaan cabaynay waa la soo dhaafayaa. You were speaking to me. aniga ila hadlaysay ama idinka aniga ila hadlayseen. It was eating meat. ayada hilib ayay cunaysay. mukulaasha shalay hilib ayay cunaysay. tusaale. Okay, affirmative waa kuwii hadda aan soo akhrisinay. affirmative waxaan hore u soo sheegay in la dhaho hadal caadi. affirmative waa hadal iska caadi ah. He was eating banana. isaga moos ayuu cunayay. She was cooking lunch. ayada qaday karinaysay. They were read lesson. meeshan read ka ah ing waa in lagu daro. reading ayaa laga rabay markaan qoraya xogaa yani ka tagay ing ka tagay ku darsada insha Allah. hore ayaan u soo aragnayba. They were reading lessons ayaa laga rabaa meeshaas. We are drinking kan ing waa ka tagay. We are drinking water ayaa laga rabaa. drink waa verbka caadiga. ing kuma aanan darin meeshan drink meeshan ing lagu daro. drinking hala dhaho meeshan reading hala dhaho insha Allah. We are drinking water. You were speaking to me. idinka aniga ila hadlayseen ama idinka anigaad ila hadlaysay. adiga anigaad ila hadlaysay. It was eating meat. iyada hilib ayay cunaysay. I was playing football. waxaa idinka raali garaynayaa they iyo we labadaba ing ayaa ka maqan. read waa verbki. ing ayaa ka maqan. reading ayaa laga rabaa. drink iyadana waa verbki. ing ayaa ka maqan oo ah drinking in la hal rabay. ka raali ahaada meeshaas ing ku darsada insha Allah. negative ka aanu gudubno. Okay, negative ka wuxuuna leeyahay I wasn't playing football. aniga kubad ma ciyaaraynin. when you call me oo kale markaad isoo wacisay kubad ma dheelaynin. Okay, hadaartu ku darsan kartaa hadaartu waa iska dhaafi kartaa. Okay, I was
I wasn't it means waa short form kii waay I was not adhi kartaa I wasn't playing football aniga kubad ma ciyaaraynin he was not eating he wasn't eating banana isaga moos ma cunaynin she wasn't cooking lunch iyada qada ma karinaynin they weren't adhi karaa ama they were not adhi karaa same way they weren't reading lessons iyaga casharada ma akhrisanaynin we were drinking water anaga biyo ma cabaynin you were not speaking you weren't speaking to me idinka aniga ilama hadlaynin ama adiga aniga ilama aadan hadlaynin it wasn't eating meat iyada hilib ma aysan cunaynin hasi gudubno was I playing football ma aniga kubad ciyaarayay was he eating banana ma isaga moos cunayay were she cooking lunch ma iyada qada karinaysay were they reading lessons ma ayaga casharada akhrisanayay were we drinking water ma aniga biyo cabaynay were you speaking to me ma aniga ila hadlaysay ama ma aniga ila hadlayseen was it eating meat ma iyada hilib cunaysay wasn't I playing football aniga kubad ma dheelinin miya wasn't he eating banana isaga moos ma cunaynin miya wasn't she cooking lunch iyada qada ma karinaynin miya wasn't they reading lessons ayaga casharadooda ma akhrisanaynin miya wasn't we drinking water anaga biyo ma cabaynin miya were not you speaking to me idinka aniga ilama hadlaynin miya mise adiga aniga ilama hadlaynin miya wasn't it eat meat iyada hilib ma cunaynin miya halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم waxaan soo gudagaleynaa tenniskeeni ahaa past perfect tense ahna tenniskeeni toddobaad ayaan soo gudagaleynaa insha Allah what is past perfect tense waa maxay past perfect tense what is the rule of past perfect tense rulekiisa ama sharcigiisa waa maxay give an example tusaale naga sii auxiliary verb of past perfect tense muxuu yahay had ayuu noqon doonaa insha Allah oo sii gudagalno past perfect tense maxaa loo isticmaalaa is used waxa loo isticmaalaa to express an action inuu qeexo ficil that happened dhacay before ka hor another action ficil kale ka hor in the past ee lasoo dhaaf rule sharcigiis muxuu noqon doonaa subject plus had plus verb kaasoo ah past meeshan past aan ka rabaa past participle form plus object okay tusaale affirmative ka muxuu leeyahay afar qaab ayaan u sameyn doonaa affirmative negative question iyo question with negative insha Allah okay affirmative aan ku socono affirmative ka wuxuu leeyahay I had played football kubad ayaan ciyaaray before he came intuusan asaga ii imaanin aniga kubad ayaan ciyaaray okay waa la soo dhaafay waa laba dhacdo fiiriya I had played football kubad ayaan ciyaaray waa kubad mar hore u ciyaaray before waxaan ciyaaru yiri before ka hor he came intuusan asaga ii imaanin ka hor ayaan kubad ciyaaray waa laba ficil oo marka dhacdadoona ay kala horeyso okay he had eaten banana isaga moos ayuu cunay before we arrived intaan anaga imaanin ka hor ayuu moos cunay she had cooked lunch qada ayay karisay before I arrived intaanan anigu imaanin ayay qada karisay they had read lessons casharadooda ayay akhriyeen before teacher came macalinkii intuusan imaanin ka hor ayay akhriyeen casharada we had drunk water anaga biyo ayaan cabnay before we eaten lunch intaynu qadaynin ka hor ayaan biyo cabnay you had spoken to me anigaad ila hadashay before she called me intayna ayada isoo wicin it had eaten meat hilib ayay cuntay before I killed it intaan anigu dilin ayay hilib cuntay mukulaal hilib bay iga cuntay intaanan dilin ka hor ayay hilibka iga cuntay mukulaal ma dilin laakiin tusaale waaye negative ama negative wuxuu noqon doonaa sidan asigana I had not negative markaad wax ka dhigayso waa inaad not soo gelisaa must weeyaan I had not played football aniga kubad ma ciyaarin before he came intuusan asaga ii imaanin ka hor kubad ma dheelin waa la diiday negative weeyaan we had not eaten banana anaga moos ma cunin
He had not eaten banana isaga moos ma uusan cunin before we arrived. Intayn anagu imaanin ka hor moos ma uusan cunin. She had not cooked lunch ayada qada maynan karinin before I arrived. Intaan anigu imaanin ka hor qada maynan karinin. They had not read lessons ayaga casharadooda ma akhrinin before ka hor teacher came. Macalinka intoon imaanin ka hor ayaga casharada mayna akhrinin. We had not drunk water anaga biyo ma cabin before eating lunch. Intaanan qadaynin ka hor biyo ma cabin. Waa la diiday. You had not spoken to me adiga aniga ilama aadan hadlin before she called me intayn ayada isoo wicin ka hor aday maad ila soo hadleen. It had not eaten meat ayada hilib ma aysan iga cunin. It has not eaten meat ayada hilib mayna cunin before I kill it. Intaanan dilin ka hor hilib mayna cunin. aan usii gudgalno question or ama waxaan kala dhigi karnaa interrogative. Waxaan horey usoo sheegay question or ama interrogative. Question iyo interrogative inay same yihiin. Haddii aadan casharadii kuwan ka horreeyay aadan soo daawan fadlan kuwii hore soo daawo si aad inoola socotid insha allah. aan usii gudgalno interrogative ama question. Interrogative haddii lagu dhaho baashan haddii lagu dhaho jumladan ka dhig interrogative iyo haddii lagu dhaho jumladan ka dhig question waa same. Had I played football ma aniga kubad ciyaaray before he came. Intuusan asaga imaanin ka hor miyaan kubad ciyaaray? Waa su'aal baa lagu weydiiyey. Had I eaten banana? Had he eaten banana ma isaga moos cunay before we arrived. Intaan anaga imaanin ka hor miyuu moos cunay isaga? Had she cooked lunch ma iyada qada karisay before I arrived. Intaan anaga imaanin. Had they read lessons before teacher came ma ayaga casharada akhriyay before teacher came macalinka intuun imaanin ka hor? Had we drunk water before eating lunch ma anaga biyo cabnay qadada ka hor ama intaynu qadayn ka hor? Had you spoken to me ma adiga ila hadlay before she called me intayna ayada isoo wicin ma adiga ila soo hadlay? Had it eaten meat ma ayada hilib cuntay before I kill it intaanan dilin? Ma ayada hilib cuntay intaanan dilin ka hor? waa laba ficil weeyaan. aan usii gudgalno last oo ah negative diidmo with ay la jirto question su'aal. ama waxaan kaloon oran karnaa negative diidmo with interrogative oo la jirto su'aal. Interrogative iyo question inay same yihiin hore usoo sheeg. Had not I played miyaanan ciyaarin football kubad before he came intuusan isaga imaanin ka hor? Had not he eaten banana miyuusan isaga moos cunin before we arrived intaan anaga imaanin ka hor? Had not she cooked lunch miyaysan qada karin before I arrived intaan anaga imaanin? Had not they read lessons miyayna casharadooda akhrin ayaga before ka hor teacher came macalinka intuun imaanin ka hor casharadooda miyaysan akhrin? su'aal diid ma jirto weeyaan. Had not we drunk water anaga biyo ma cabin miya before eating lunch qada intaanan qadaynin ka hor anaga biyo ma cabin miya? Had not you spoken to me before she called me adiga ilmaadan hadlin miya intayna ayada isoo wicin ka hor? Had not it eat meat ayada hilib ma cunin miya before I kill it intaanan dilin ka hor? inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan kugula talinayaa casharada in ay sida ay u kala horeeyaan usoo daawatid insha allah haddii ay baraali ka noqdo. present continuous tense kasoo bilaabo afarta baasti soo fahan kadib ama waxaad kaloo samaysaa present continuous tense fahan simple present ku xijiso tartiib waxaa waaye mid walba goonigiisa usoo fahan. exampleadan waxaan uga soo dhigay yani affirmative negative iyo waxa uga soo dhigay xoogaa badbedelka ayaa ardayda bilowga inta badan ku adag marka si fiican ula socda insha allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa injineer xuseen oo idan leh sidaa iyo waxbarasho horumar leh insha allah.